waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno daafurka iyo bilaabidda raadinta ku saabsan qodobada ama cutubyada tobnaad ilaa iyo 15 ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Saan u nahay horay waxaa raadin iyo wadashi iyo baritaan dadka la barayo lagu soo sameeyey cutubyada 5 ama cutubka 5 laga bilaabo ilaa cutubka 9 oo hadda taan weli aan gaarin baarlamaanka dowladda federaalka balse aan dowladda gaarsiinay heer federaal guddiyada aan gaarsiinay ama si dowladda gaarsiinay intana aan ka soo sameeyay raadin laga soo arooriyay shacabka qeybihiisa kala duwan bulshada qeybaheeda kala duwan ha aadan dowladda ha aadan qaybaha bulshada rayidka ha aadan ururada haweenka intaba aan la soo sameeyay wadatashi iyo xoghayn aan ka soo arooriyay dadka dowladda ku sugan waxa ay noqotay mid ay ayaga dadka raadinayeen naladooda ku beesgarayaan ayna kaga hadlayaan waxa uu yahay dastuurka qodobka loo baahan yahay in dastuurka lagu kordhiyo qodobka aan u baahnayn inuu ka simid mid ahaado dastuurka qodobka la doonayo in maanta lagu soo kordhiyo intaba waa soo sameeyay waxa dhiman waxay tahay waa in loo gudbiyo baarlamaanka federaalka ayagana ay ansixiyaan haddii ay barayaan ama ay wax ka dhimayaan meeshaas ay ka sii gudbaan sabab tahay waddanka wuxuu lahaa muddo aan laga soo bilaabo 12 ilaa maanta la joogo ayaa dastuurka meelgaar u lahaa dastuurka meelgaarka waxa lagu kala duwanayahay tiyaaradkaas markaas taagan yahay iyo dowladdii oo markaas meelgaarka ka dhacaysay iyo dowladda rasmiga qaadanaysay in loo gudbo kadibna dib u eegis rasmi lagu sameeyo ayaga musharaxiinta maalintaas ay yihiin laga soo bilaabay 12 ilaa maanta la joogo ilaa qof walba la isku soo taagay waxaa noqon doonaa madaxweynaha dhammaystiran dastuurka qabiilka rasmiga lagu sameeyo waxaa maanta nasiib aan u yeelanay in 5 qodob ama 4 qodob in horta la soo asixiyo dib u eegistii la soo sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan laga soo sameeyo in raadinteedii kadibna laga soo gudbo baarlamaanka la asixiyo waa guul la gaaray oo qayb ka mid ah dastuurkii maanta xilligan waa la qabiiltiray ee faa'iidooyinka ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteeda dowladnimada iyo horumarka ay dowladda Soomaaliyeed ka caawinayaan oo qayb ka noqonayso sidaas la mid ah shacabka tubo ka mid ah mar kale ayaa waxaa la sameeyey ummadii iyo shacabkii qaybihiisa kala duwanaa ilaa iyo Soomaaliya dhammaanteeda laga sameeyey dib u eegis ama dadkii oo ra'yigooda la weydiiyo ayagii laga kala geliyo ra'yi aruurin lagu sameeyo ummadiina laga wadaago waxa ay u yahay dastuurkii qodobadii laga bedelay intaas ay tahay adinkana midkaad ku dar leedahay midkaad ka dhigi leedahay ka dhigi faa'iidada noqotay ayagana waxaa rajaynaynaa in la ansixin doono hadda maanta waxaa loo yahay waa cutubyada 9 ilaa cutubyada 10 ilaa 15 oo la doonayo in amala aan daafurno kadibna aan shacabkeena qaybaheeda kala duwan ee dowladda ku sugan aan gaarsiino waxaan rajaynaynaa insha Allah dowladda iyo shacabkeena iyo dowladda anaga dhammaystiran oo ku guuleysan doona dastuurkan inuu noqdo mid rasmi ah oo ummadda Soomaaliyeed lagu noqon doono mustaqbal rasmi ah ilaa laga gaarayo in afti rasmi ah loo qaado aad iyo aad waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka dhanna ay sidaas u qaataan ay tahay in hebel iyo hebel ee ummadda Soomaaliyeed wax loo sameeyo aad iyo aad